السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bulshada sharafta mudan ee ku xidhan Channel Maal soo dhawaada. Waxaanu maanta bilaabi doonaa taxanaha aan idin kala daahay ee aan ka sameynayo dhiganaha kun habeen iyo habeen. Haddii ay tahay markii koowaad ee channelkan soo booqanayso, fadlan subscribe ka taabo, like tana saar, gambareelkana daaro si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeeda cusub. Anigana ay dhiirigelin igu noqoto. Iminkana daawasho waan. inta aynaan gudagelin daafaha dhiganaha waxa aan xog yar oo dulmar ah idinka siinayaa kitaabkan iyo waxa uu ku saabsan yahay. Kitaabku waa sheeko la isku khilaafay asal ahaan halka ay ka soo jeedo. Dadka qaar waxa ay qabaan inay ka soo jeedo boqortooyadii Saasaan ee xukumi jirtay Hindiya iyo Bilaadu Sind, halka dadka taariikhda wariya qaarkoodna ay qabaan in ay ka dhacday Ciraaq. Sidoo kale waxa la sheegaa inay ka dhacday dalka Masar. laakiin arrinka xaqiiqada ugu dhawi waxa uu yahay in boqorka ay sheekadu ku socoto ee Shahriyaar xukumi jiray meelo qaaradda Aasiya ka mid ah. sheekadana waxa ku jira qisooyin badan oo caan ah sida qisadii Calaaudiin iyo Fiinuskiisii yaabka lahaa. waxa kale oo ka mid ah sheekadii Ali Baba iyo tuugtiisii 40-ka ahaa iyo 7 safar ee badmaaxi weynaa ee Sindibaad. yaa qoray sheekada? ilaa iyo hadda lama yaqaano qofkii asal ahaan sheekadan qoray, laakiin casrigii dahabiga ahaa ee khilaafadii Cabbaasiyiinta ayaa sheekadan la soo tarjumay markii ugu horeysay. sidoo kale waxa afka Ingiriiska loo tarjumay sanadkii 1704. imisa luqadood ayaa sheekadani ay ku qoran tahay? ma jirto luqad caalami ah oo aysan sheekadani ku qornayn, waana sheekada lagu akhriska badan yahay adduunka. waxayna ku turjuman tahay luqado badan oo ay ka mid yihiin Carabiga, Ingiliishta, Talyaaniga, Faransiis, Greek, Spanish, Portugal, Germany, Sweden, Denmark, Russian, Scotland, Poland iyo Hungary. sidoo kale waxa laga sameeyay filimaan iyo musalsalo caan ah. marunbaa sheekada kun habeen iyo habeen. waxa xaqiiqo ah inuu jiray boqor Shahriyaar la oran jiray iyo xaaskiisa oo la oran jiray Shahrazad. laakiin waxa la isku khilaafay in sheekooyinka meesha ku qoran oo ay ka sheekeynayso Shahrazad in ay run yihiin iyo in kale. waxay sabab badan tahay inay qaarkood yihiin sheekooyin khayaali ah oo hab aad u macaan oo si farshaxan leh loo qoray ay ku jiraan, sida sheekadii Ali Baba iyo sheekadii badmaaxi weynaa ee Sindibaad, iyo sidoo kale sheekadii Xamaaliga iyo gabadhii. waqti intee leeg ayay soconaysaa? sheekadu waa mid aad iyo aad u dheer, waana mid ka mid ah sheekooyinka ugu dhaadheer ee adduunka la qoray. gabadha sheekada warinaysa ee Shahrazadna waxa ay ku qaadanaysaa inay dhammayso kun habeen iyo habeen, inkasta oo buugaagta qaar lagu soo koobay ilaa 200 oo habeen. sidaa awgeed lama sheegi karo xilliga ay qaadanayso, laakiin waxaan rajaynayaa inta ugu badan sheekadan inaan idinla wadaago oo idiin soo gudbiyo. waxtarka sheekadu muxuu yahay? badiba sheekooyinka aynu maqalno waxa laga soo dhigtaa dhiganahan. sidaa awgeed qofka dhiganahan akhriya ama dhagaysta waxa uu ka faa'iidayaa xikmado tiro badan, murti zaa'id ah iyo waayo aragnimo xeel dheer. ruuxa sheekooyinkan weeleeya waxa uu noqonayaa sheekayahan dadku afkiisa ay eegaan. waxa uu noqonayaa dhacdo kasta uu soo istaago qof haya tusaale u dhow ama maahmaah la mid ah ama sheeko hadda ka hor dhacday oo arrintaa la jaal ahayd. waxaan idiin ballan qaadayaa inta taxanahani socdo in aydan marnaba sheekadan ka caajisaynin. sheeko kastaana sheeko kale oo xalad badan oo yada la mid ah ay kuu dhiibayso ilaa aad ku baraarugto inta xanihiba gabagabo ku siisiqayo. yaa iska leh xuquuqda tarjumaadda dhiganahan? xuquuqda tarjumaadda dhiganahan waxaa iska leh Cabdiraxmaan Anteno oo ah qoraal Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho. isagana fasax qoraal ah aan ka helay oo uu iigu ogolaaday inaan dhiganahan uu tarjumay aan codeeyo. Cabdiraxmaan waxa uu leeyahay channel YouTube ah oo la dhaho Antena TV oo uu soo geliyo muuqaallo aad u qiimo badan oo waxtar fiican u leh da'yarta jecel aqoon kororsiga. fadlan booqo channelka Antena TV si aad indhahaaga ugu aragtid degelkan aqoontu dhex eegaagto. iminkana aynu gudagalno dhiganaha kun habeen iyo habeen. waxaa la sheegaa Ilaahay ayaa xaqiiqada oge inuu jiray waa hore boqor ka mid ahaa boqorradii reer Saasaan, taas oo dhacda galbeedka Hindiya. wuxuuna ahaa boqor leh awood ciidan iyo mid dhaqaalaba. wuxuuna boqorkaasi dhalay 2 wiil. ka weyn waxaa la dhihi jiray boqor Shahriyaar, ka yarna waxaa la dhihi jiray boqor Shaahuzamaan. waxaa dhacday in boqorkii weynaa uu xanuunsaday xanuunkii geerida, kadibna uu isugu yeedhay labadiisii weel ee amiirada ahaa. wuxuuna u sheegay inuu boqortooyada uu u kala qaybiyey oo uu midba goonidiisa wax u xukumi doono oo ay tahay inaan isku xadgudbin. kadib markuu boqorkii iska dhintay, labadiisii wiil sidii ayay yeeleen, mid kastaana boqortooyadiisii ayuu maamushay, layskumana xadgudbin. muddo markii ay ka soo wareegtay oo aysan isarkin muddadaas ayaa waxaa dhacday in boqorkii weynaa ee Shahriyaar uu u xiisooday walaalkiisii ka yaraa. wuxuuna u qoray fariin uu ugu sheegayo inuu u xiisay oo ay tahay inuu u yimaado. fariintaas oo ugu dhiibay wasiirkiisii. boqorkii yaraa wuu yeelay hadalkii walaalkii, waxa uuna go'aansaday inuu u safro. maalinkii dambe ayuu soo safray boqorkii yaraa. markuu muddo jidka ku soo jiray ayuu xasuustay inuu soo ilaaway hadiyad khaas ahayd oo ugu tala galay walaalkiisa ka weyn. sidaas darteed dib ayuu u noqday, wuxuuna qasrigiisii ku soo noqday waqti habeen ah.
markuu qolkiisii soo galay ayuu arkay arrin argagax lahayd oo aad uga fajicisay. wuxuu arkay xaaskiisii oo addoon madoobi sariirta la saaran yahay. boqor shaahu zamaan markuu arrinkaa arkay adduunkii oo dhan ayaa la madoobaaday. wuxuuna is yidhi haddiiba gabadhan falkan ay ku kacday adigoo aan weli beledka toos uga wada bixin maxay samayn lahayd haddii aad maalmo sii maqnaan lahayd. markaas ayuu go'aansaday inuu labadoodaba ka takhalluso. inta uu labadoodiba soo qabtay ayuu kurta ka jaray. kadib boqorkii isagoo aad u murugaysan ayuu soo ambabaxay oo uuna soo aaday dhankii walaalkii iyo boqortooyadiisii. markii uu u yimi boqor Shahriyaar aad ayuu ugu farxay imaanshaha walaalkiisa ka yar si fiican oo aad iyo aad u qiimo badanna uu u soo dhaweeyay. laakiin waxa uu dareemay in walaalkiisa yiri uu murugaysan yahay. markaas ayuu u qaatay inuu walaalkii la murugaysan yahay maadaama uu ka soo fogaaday dhulkiisii iyo boqortooyadiisii. kadib boqorkii weynaa waxa uu diyaariyay gaadiid iyo ciidan ilaalo ah oo ugu tala galay inay ugaarsi iyo tamashle u raacaan, isaga oo uga dan lahaa inuu kaga farxiyo walaalkiisa yar murugadana kaga biiyo. maalintii la bixi lahaa ayuu boqorkii yaraa ka cudur daartay inuu baxo. kadib boqorkii weynaa iyo kooxdiisii keligood ay ugaarsi tageen. boqorkii yaraa isaga oo qolkiisii ku jira aadna u murugaysan ayuu daaqada qolkiisa oo xigtay dhinaca beerta qasriga sanqadh ka maqlay. markaas ayuu dhinacii sanqadhu ka baxaysay uu eegay. wuxuu arkay arrin ka yaabisay tii haysatana ilowsiisay. waxaa beerta qasriga soo gashay dumaashadiisa oo ahayd xaaska walaalkiisa ka weyn oo addoon madoobi gacanta haysto, iyada iyo 20 jaariyadood. 20ka jaariyadood mid kasta oo ka midina addoon kale gacanta haysto. halkii ayaana tumasho la galay. markaas ayuu boqorkii yaraa ee Shaah Zamaan isiri wallee dhibkii ku haystay waxaa ka daran kan walaalka maanta haysta. waxa uuna go'aansaday inuu iska ilaawo murugadii haysatay. markuu soo laabtay boqor Shahriyaar waxa uu dareemay isbeddelka ka muuqda walaalkiisa boqor Shaahu Zamaan. waxa uuna go'aansaday inuu weydiiyo. markii dambe ayuu weydiiyey wuxuuna ku yidhi walaalow halkan markaad imanaysay waxaa kaa muuqatay murugo iyo tiiraanyo badan, laakiin hadda caadi ayaa tahay ee waxa aad ii sheegtaa waxa markii hore murugada kugu keenay iyo waxa murugada kaa qaadayba. waxa uu ku jawaabay boqorkii yaraa waan kuu sheegaya waxa murugada iga keenay laakiin kuuma sheegayo waxa murugada iga qaaday. markaas ayuu boqorkii weynaa yidhi waayahay bal ii sheeg waxa murugada kuu keenay. markaas ayuu uga sheekayay arrintii uu kala kulmay xaaskiisa iyo addoonkii sariirta la saarnaydba. boqor Shahriyaar ayaa yidhi ilaa waa inaad ii sheegtaa waxa kurbadaas sidaa u weyn kaa qaaday. markuu ku adkeeyey ee ku celceliyey ayuu u sheegay wixii beerta qasriga ka dhacay. boqorkii weynaa arrinkii uu rumaysan waayay. markaas ayuu boqorkii yaraa ku yidhi haddaad beenteeda u malaynayso dadka isugu wac oo ku dheh dalxiis iyo ugaarsi ayaanu aadaynaa. marka la baxana inta aad soo dhuumato qolkayga soo gal adiga indhahaaga ku arkaaye. boqor Shahriyaar sidii ayuu yeelay. kadibna waxa dhacday wuxuu arkay xaaskiisii iyo addoonkii iyo wixii uu walaalkii hore uga sheekeeyey. halkaas ayaynu ku soo koobaynaa xalqadeena maanta. inta xalqadaha kale ee taxanahan aynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.